Munaasabadan ayaa ahayd mid madrasada Xamza bin Cabdilmuطalib ee degmada Afgooye ka maamustay 17 arday oo xifdisan Quraanka Kariimka ah, caqiidada, siirada, axaadiista iyo waxbarashada asaasiga ah. Munaasabadan ayaa ka soo qayb galay madaxa mu'asasada Al-Azhar, culamaa'udiin, waalidiin iyo mas'uuliyiin kale. Maamulaha guud madrasada Xamza bin Cabdilmuطalib Xasan Aweys Ibraahim ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay heerarka ardayda iyo taariikh kooban oo khuseeya madrasada. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh oo kulka maanta oo nin ogolaadi inay xafladayna nin qabsoonto. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad aliyaane. Mahad labaad waxaan siyaane ardaydii iyo waalidiintii iyo walaalihii iyo asxaabtii oo dhammaan bartakooladan oo nila soo garab galeen dhammaantiyo iyo marti sharafta waalidiinta, mucallimiinta, mashaayikhda, dhalinyarada, gabdhaha, maamooyinka dhammaan waxaan silanaa jazaakumullahu khayra, jazaakumullahu khayra, jazaakumullahu khayra. Maasha Allah. Tan kale alan gudba waxa waaye walaalayaal waxaan maanta aan la fadhinay oo xafladan la ka maamusooye waa ardayda oo sanadkan madrasada Xamza bin Cabdilmuطalib oo ka qalin jabiyeen. waayo ardada Allah subhanahu wa ta'ala ayaa garabkaana galay sanadkan inaan oo xafladan aan dhigno. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka mahadsan. Ardadaas ayaa maanta xafladan ayaan ka takriibnay oo dhammaantayna oo wajiyaalkayna suruurkan ka muuqado iyo farxadda ka muuqato waxa waaye ardadan oo maanta intan fadhiso iyo ardadan aragoyna waaye. waxaan lana waalidiintii iyo dadkii ka soo juhdibiyay iyo macallimiintii waxaan lana dhammaantiin khayr la siiyo. insha Allah ta'ala qodobka saddexaad waxa waaye oo raba inaan ka hadalo xafladan waxaan dareemayaa inay xafladii hore ka duwanta. waxaan aragayteena meesha waxa la soo suubay protocol malaan soo suubine sida faan iyo macalinka iyo waxyaalaha wax qabad shay wax kamid in la soo bandhigo waxaan aragay in ahaantay ina arin hoogaa iyo istaskiyay inay naqato. laakiin ma aan ka talgalnay ama aan la jeednay waxa la jeeday in oo dadka waalidiinta la tusiyo dugsiga hoolaas qabada waxyaalaha kamid ah inay macallimiinta animaan kaliya imaan macallimiinta dhan inay dugsiga kali shay Quraanka Kariimka ardayda ka barne oo hoola kala badan ay ardayda ka hayaan. saadartii ayaan soo bandhignay. marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa sanadahan soo socdaan xafladooyinkan soo socdaan inay kuwan iyo kuwa ka duwan oo ka weyn inay noqdaan. Ustaad Abduqaadir Ibraahim Darbane, Ustaad Abdixkiin Maxamed, madaxa mu'asasada Al-Azhar ee gobolka Shabeellaha Hoose, Sheekh Xasan iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay xafladda ayaa bogaadiyay ardayda iyo maamulka madrasada ee soo saaray jiilasha cilmiga iyo diinta ka dhisan.